عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halka digta wanaagsan waa abna official magacaygu waa Cabdiraxmaan. fadlan channelka hadii ku subscribe saar si ku soo gaaro muuqaalada. halkan waxaan kaga hadlaynaa fikrad ganacsi oo aad ka bilaabi karto Soomaaliya. waa fikrad ganacsi oo aad u fudud, budgetka ku bilaabi kartidna ay yihiin wax aad u soo kooban oo aad u yar, laakiin qofka bini'aadamka mar waliba waxa lagaga baahan yahay waxay tahay sidoo asaga maskaxdiisa u shaqeysiyo, fikirkiisa u dhaqan geliyo, iyo adkeysiga natiijada positive-ka ah ama negative-ka ah ee uu biri la kulmi karo. dhamaanteen waxaan rabnaa inaan shaqeysano oo waxayno adana saas ay tahayna waxaan u baahanahay inaan samir muujino. fikirkani ganacsiga waa mid aad u fudud haddii aad dabaqdo oo aad sameysana kugu qaadan karto. waa aalado waxa kaliya u baahan tahay waa aalado yar yar iyo dad adig ku shaqeeya. fikirkani waa cleaning service ama wax loo yaqaan adeega nadaafadda. laga yaabee in aad taado sidee aniga uga shaqeynayaa nadaafad, maxaa igu kalifaya inaan nadaafad ka shaqeeyo. wacyigelinta bulshada ay u baahan tahay ama dhalinta Soomaaliyeed ay u baahan yihiin ayaa waxay u baahan yihiin mar waliba waa in aqliyadaada ka shaqeysid, ma aha inaad shaqooyinka qaar, ganacsiyada qaar ka fahamtid adiga u arkaya in ay yihiin wax liita. no way, dunidaan ma jiro wax liita less than adiga fursadaas iska qasaarinaya mooye wax liita ma jiro. wax waliba oo dakhli ka soo gali karo oo resource ka soo gali karo waa wax tayadeedu wato. nadaafad markii aad ku leeyahay kama wado inaad adiga ka shaqeynaysid ama meel hoose oo adiga nafsadaada is leedahay way aniga nadaafadda ugu shaqeynaya. nadaafadda adduunka waxaa lagu tiriyaa shaqooyinka ugu fudud ee qofka bini'aadamka qaban karo, samaysan karo, haddana uu wax badan ka faa'iidi karo. magaalooyinka sida Muqdisho, Kismaayo, Garowe, Hargeysa, maalin ka sii dambaysa dhismayaashoodu iyo waxyaabaha loo yaqaan infrastructure-ka maalin ka sii dambeeya aad bay u kordhayaan. jaamacadaha, hoteelada, suuqyada caalamiga maalin ka sii dambaysa way kordhayaan. adigii waxa lagaga baahan yahay waxa waaye inaad adiga asdahdid war aniga maxaa target maxaa ii ah, maxaa qabtaa, sidee u qabtaa. waxaa qabanaysid waa inaa aniga xafiisyada, hoteelada, jaamacadaha aan nadiifiyo. hoteelada maalin kasta waxay u baahan yihiin dad nadiifiya, daaqadaha nadiifiya, qolasha soo xaaqa, ma fahantay, banaanka xaaqa, dhaqa. jaamacadaha waxay u baahan yihiin sidaas oo kale dad daaqadaha tirsira, fasalada soo xaaqa, ma fahantay. all the way waxay kaaga baahan yihiin waa budget aad u fudud. waxaa u baahan tahay inaad shaqaaleysiiso 5 qof, 4 qof. inta adiga aad leedahay bilowgaaga way ku kaafinayaan. marka intaas aad diiwaan gelisid waxaa u baahanaysaa agabyadii ay ku shaqeyn lahayn sida biyihii ama waxyaabaha jeermiska dilaya, qalabkii wax lagu nadiifinayo inaad heshid. waxayna kaaga qaadanayaan waa wax kostigoodu aad isaga fudud yihiin, laakiin adiga laga rabaa sida u shaqaysiin lahayd. igu soo orod ma ahan waxyaabaha qaar inaad fududeysatid haddana adiga ku jabi karo. waxaa laga yaabaa inaad dakhli badan ka samaysid
bishii. waayo markaad dhahdid jaamacad hebel aniga bishii nadaafadda waxaa kugu qabanaya $500 abaantumaan bishii $500 ayaan kugu qabanaya saacad hebel kugu shaqeynaya hoteeladan aad dhahdid bishii $500 kugu shaqeynaya saacad hebel kugu shaqeynaya okay hal jaamacad hal hotel aan ka soo qaadano waa example okay $1,000 bishii shaqeysay $1,000 adiga bisha aad shaqeysay expensiga iyo waxyaabahaas ka jarjar dadkii adiga kuu shaqeynaya maalintii kuu shaqeynaya joornaati oo maalintii $10 calaa qof okay ku xisaabtan faa'iidada adiga aad samayn kartid faa'iidada ma ahan waxaa yar ay adiga markaas arkaysta ay ku soo galaayo faa'iidada waa labalaabka mar walba bil walba aad qabanaysid iyo ku celcelinta shaqada adiga markaas aad qabanaysid faa'iido loo yaqaano inaad hal mar lacag adho yani lacagta aad heshid aad jeebka ku xariisatid no way waxaad dareemaysaa faa'iidada saxda ah markii adiga waxaan aad ku celcelisid oo maalin ka sii dambaysa dakhliga yani uu sii kordhayo shalay waxaa heshay $500 bisha xigta waxaa heshay $1,000 bisha ku sii xigta waxaa heshay $1,500 على العموم 500 marka 12 bilood ku rufto waa $6,000 ku xisaabtan marka haddii aniga intaas aan helayo aan faa'iiday haddii dhowr hotel dhowr jaamacad dhowr xafiis aan aniga la heshiiyo dhaqaabishii samayn karaa waa fursad aad u weyn oo aan ka faa'iidaysan karno waxay u baahan tahay joogteen dhaqdhaqaaq karti adkaysi hal abuurnimo xirfad waxaan diyaar u ahay inaan kaa caawiyo wax allaale wixii aad ku baahan tahay inaad furisid ganacsigan wixii talo aad iga u baahan tahay telegram linkiga aan hoos kugu soo dhigayo igala soo xiriir sidoo kale su'aal wixii aad qabtid saasoo kale igala soo xiriir muuqaalka haddii uu ku cajabgeliyo like saar ha iloobin inaad channelka subscribe aad saartid mahadsanid insha allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan aad ka faa'iidi doontid